caaqil axmed caaqil cabdirashiid oo ka mid ah madax dhaqameedka beelaha direed ee somalilan iyo deegaanka soomaalida gaar ahaan oqaasha beesha gurgure oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada gabiley ayaa ka hadlay muran maalmihii ugu dambeeyey ka taagnaa saami qaybsiga degmooyinka deegaanka soomaalida Itoobiya waxaanu caaqilku baaq u diray madaxweynaha deegaanka soomaalida Mustafa Cagjar iyo sidoo kale beesha gurgure ee deegaankaasi degta salaamaya dhammaan ummadda muslimiinta Somaliland Itoobiya dawladda deegaanka soomaalida aad iyo aad baan idin salaamaya salaan kadib waa anigu caaqil axmed caaqil cabdirashiid kamida madax dhaqameedka direed gaar ahaan Somaliland iyo deegaanka soomaalidaba waxaan halkan kulay caawa maanta ku qaban doonaa kilib aan ugu talagalay dawladda deegaanka doorashooyinkii degmooyinkii u soo kordhay dawladda deegaanka ee maalmahanba aad loo hadal hayay aniga oo ra'yigayga ka dhiibanaya waxaan horta leeyahay waxa wax loo qaybsadaa waxa weeyaan waa dir iyo daarood hadday deegaan tahay hadday tahay maamullo kale oo Soomaaliyaha kala ah dawladda deegaanka marka anagu dir baanu nahay anigu caaqil gurguraanahay reerkayga ayaan u hadlayaa wixii aan ka arkay baan ka hadlaya waxaan u arkaa degmooyinka soo kordhay in ay dhinac ka rarnaayeen oo ay 3 nin kala goosteen 3 nin baa degmooyinka kala goostay degmooyin matalaad loo qaybiyay maaha degmooyin loo qaybiyay ummadii wada deganeed iyo xuquuq iyo sida ay degmadu dhulku u kala istiraatijisan yahay maaha waxa aad iyo aad wax looga xumaada markay madaxda Soomaalidu ay madax noqoto in ay qayb shaaqaatay noqoto halkii ay ka noqon lahayd qayb shaaqaday mar labaad baan ku celinayaa madaxweyne Mustafa Maxamed Umar waa madaxweynayaasha aan u jecelahay laakiin maanta hoos buu soo yar dhacay sidaan arkayo haddii aan taariikhda ka hadlo anigu halka ubacda halkaan u socdo waxaan ka hadlayaa taariikhda gurgura dawladda deegaanka waxa aas-aasay gurgure diri dhaba lagu aas-aasay hoorsa lagu aas-aasay cidda suurta gelisay in la isku yimaad waxa koow ka ahaa gudoomiyihii diri dhaba maayarkii diri dhaba oo gurgura ahaa oo la yiraahdo Ismaaciil Waadan baa ya hawsha gogasheeda dhigay isaga dhameystiray waxa weeyaan dawladda deegaanka tabaca waxa geliyay reerka gurgura la yiraahdo wax ay maanta ku hayaan ma jirto waxa dhacday markii uu gurgure isagu halkii Soomaalinimada uu buuxiyay ee uu martigeliyay ee uu gogashii huray ee uu kililka maanta dil dhaba ka sareeyaba uu dhisay waxa dhacday halkii lagu aas-aasay inuu kililku uu ku qaaday inuu hoos u dhigay nin waalidkiisa hoos u dhigaana ma jiro waxaan ku cadeynayaa taa 29kii markii meesha lagu aas-aasay u dambeeyay Cabdilaahi iyo xasan markay isbedeleen labada madaxweyne anagu waxaan lahaan jirnay hoggaanka nabadgelyada gurgure wuxuu lahaan jiray maaliyadda hanti dhowrku lahaan jiray maanta ku xigeen ayuu leeyahay ku xigeenna Nabi Maxamed baa sameyn lahaa hadii uu ku xigeen naflay ama uu de wax yahay marka reerka horta aad iyo aad buu halka ugu gafay nin ogaadeen oo Cabdilaahi bedel la yiraahdo ayaa gabay tiriyay isaga oo dardaaraya dawladda deegaanka in baan ka soo qaadanaya marka reeraha dhan iyo inta uu degto dardaaray wuxuu yiri inta ka soo qaadanaya waxa weeyaan oo NLF yaan magac qabiil lagu idaacayn waa urur siyaasi ayaan cidina aanaysan ikhtiyaarkii weeyii mabda ruuxa aaminsan dad ayay jirayaan oo dalaga saarin ana idhi hal daayay amar ku taaglayn horta ana idhidii ayaa maanta socotay iyo tii adeerka ku yiri hal daayay amar ku taaglayn afarta ilmo absame iyo duqa adeerkooda aabiye hooya dhalay aasa ka ogtooda ixtiraam ku qaabila wixii culimo ree awwa akishe iyo bursuugiyaan xumaan urta loo gelin akishiye bursuug halkaana wuxuu kugu dardaaray reerihii uu kugu dardaaray akishiye bursuugiyaan xumaan urta loo gelin Cagjarow maanta urta loo gelisay akishiye bursuug xumaantii akishiye bursuugiyaan xumaan urta loo gelin waa ilqaloo cangari koobayaan cid ku soo eegin waa ehelada jaarsuuya sahal ogaado yaan oo daciisa iyo gurgure eedinaga gaadhin ciise waa hagaajisay gurgure maanta ku maray waa lagu dardaaro gabayga adeerka uu ku jiraay aqoonyahanka gudabiirsi yaan erixin loo geysan ha ku maray maanta gudabiirsina
maxaad siisay gurgure maxaad siisay akisho maxaad siisay dadkii lagugu dardaaray maxaad siisay yaan xumaanta yaan aqoon-yahanka gudabiisi erixin loo geysan iyagiyo allahood wixii uurka loo dabaye ixsaankooga badiya reer sheekh Isxaaq aad u sii badiya reer sheekh Isxaaqna wuu kugu dardaaree ixsaankoogii maad badisay waa awoodda ugu weyn oo hadday gilgishaan wax weyn ku yeeli karaa gabaygaasi wuxuu kililka lagu dardaaray halkaasaa laga maray gabayga waxaan leeyahay horta kililku waxa weeyaan waa laba xuduud iyo ubac xuduud waxa dega gurgure iyo reerka hawiyaha lagu yidhaa xuduudda Somalilandna waxa dega Isaaq iyo Samaroon ubacdaa u dhaxeeya waa Ciise iyo ogaadeen markay sidaa tahay waa hal afar naas leh halkan waxa ka tagaa waxa la wixii xaggan waxa la wixii Ethiopia xiriiraysa iyo waxa la wixii wax ka heshaaba waa halkan xaggaana khudaartii iyo wax kasta ka yimaada labadaasi reerka ogaadeen marka laga reebo reerka labaad ee maanta ugu awood badan la kilku waa reer Sheekh Isxaaq ee ugu dhulka badan leh maxay hayaan haddaba sida loo qaybiyay baan maanta ummadda u sheegaya horta dirkii waxa la yiri hal aaso yaa aasaya la isweydiiyay Ciise yiri ana aasaya marka waxa Ciise iyo ogaadeen ba heshiiyay ogaadeen waxa la siiyay labada naas ee Samaroon iyo Isaaq ay degan yihiin labada waxa la yiri ogaadeen hasha ka maalo Ciisena waxa la siiyay labada naas degmada erar iyo degmada ma ayso oo labaduba dubdur yihiin oo labada ay wax ka soo go'aana oo gurguriyo ay kala degan yihiin reerka lagu yiraahdo hawiye labada naasna waxa la yiri Ciise hamaalo waxa soo kordhay ina shida oo garra ka joodo isagu kaasi wasta waxaan hadaba leeyahay mudane madaxweyne gurgurana noqon maayo laba naas oo ay Ciise taqaan reerka reer Sheekh Isxaaq noqon maayaan laba naas oo ogaadeen joqo maanta tii ala soo afjaray waxa la yiri islaam baa amaan jeclayd habeen walba maalin walba odagayga waxa tiraahdaa waxana nadiifiyay gogashii waa nadiifiyay gurigii waa nadiifiyay maxay kale waa nadiifiyay markay wax walba nadiifisay amaan awgeed ayuu odaygii maalintii dambe ayay islaantii gurigeegii eegto waxa loo hay nadiifisay weey kitaabkii bay soo qaato way maydhay kadibna odaygii baa yimid heblaayo maanta aad baa nadaafad fiican tahay islaantiisu inay amaan jeceshahayna wuu ogaa maanta maxaa nadiifisay wixii go'ayaabaha ka go'eebay tiri kitaabkii baa nadiifiyay kitaabkii bay maydhay horta kililku wixii go'ayaabaha ka go'ee ina cagjar maanta kililkii wuu nadiifiyay cidii go'aysaana iyadoo taala cidii iyadu deen nadiifinta haddana si hoos joogaysaa iyadoo taala ina cagjar islaantaasu noqday amaanta jecel amaanta cid uu ka doonayo lama garanayo kililkii wuu maydhay wuu nadiifiyay laba reer buu ka soo saaray markuu nadiifiyay wuxuu ka soo saaray ogaadeen iyo Ciise wuxuu nadiifiyay isagii alli halku ka helayay isaga u taala kitaabka wuu nadiifiyay wuu maydhay kitaabkii wuu go'ay wixii doonaa waa go'ay kitaabkii wuu maydhay ninkaasi waxa aan ku soo gabagabeynayaa reerkayga oo gurgure ah aan hadalka badinayn waan dardaarayaa horta waxa tihiin dadka loo diiday degmada ee degmadoodiina laga dhigay ismaamul 5 kilomitir ah ee aan wax kale oo la siiyeyna jirin degmadii hoorse ee uu kula balamayna ay maanta uu ka baxay waxa weeyaan degmada erar noqon mayso 11 halaad oo ruqa oo Ciise leeyihiin degmadaasi tii lagu kicinayay noqon mayso degmadiini hadduu idin siin waayay gurguro wuxuu alla idin badan yeela waxa kale oo kugu daldalayaan maanso uu tiriyay hadraawi ayaa ku jirtay sidan la isku riixriixayay sida ummaddu ay wax u sadbursanayso ku warramay wuxuu yiri dheeraad nin dooniyo ninku dhaga xaqiiso dhacsanaya baa jira horta gurguro wiilku dheeraadka ninkii doonayna ma ihidin ee waa Ciise ku dhacsanayo oo ku dhagaya xaqiiso oo dhacsanayna ma ihidin sidan wax ka bedela wixii wax maanta aad haysaan ma jirto taariikhdiini meedan xafidan
dadnimadiinni maydaan xafidan haddaba waxaan ku leeyahay idinku waxaad noqoteen labadaa maxaa ka dhexeeya waa dheeraad nin doona iyo nin ku dhaga xaqiisa kii dheeraadka doonayay waa ciise kii ku dhagayay daadumatiid reer sheekh saxaaq way ku dhageen xaqooga way hayaan taytalkii unbaa ka maqan gurgurow dib iskugu noqda oo dee qof dheeraad doona noqda weliba qof dheeraad doona noqdaan idin leeyahay madaxweynahana waxaan leeyahay dee adigu kitaabkii waad maydhee wixii go-ayaaba ha go-ee inta kuu soo hadho uun akhride wasalaamu calaykum